kulanti wacan saaxiibadan aadka u jecelahay ee ku xiran janalkayga Bashiir Dhaqane. saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba. Waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiinba wanaagsan tihiin. Waxaan maanta muuqaalkan kaga hadli doonaa maxaad ka taqaanaa 10 shaqsi ee caalamka ugu hodansan sanadkan. Maxaase ka taqaanaa maskaxda bini'aadamka sida ay u shaqeyso. Waxaana kuu sheegi doonaa waxyaabo la yaab kugu noqon doono ee maskaxda bini'aadamka ay qabato. Haddaba intaanan u guda galin faahfaahinta labadeenan mowduuc, waxaan marka hore kaa codsanayaa haddii aad tahay qof nagu cusub, please channelka noo subscribe garee. Haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. Aan ku horeysiiyo 10 qofood ee caalamka waqtigan ugu hodansan. 10 qof ee caalamka ugu hodansan sanadkan waxaa ugu horeeya Jeff Bezos oo sanadkiisii 3 oo xiriir ah weli ah shaqsiga ugu hodansan dunida. Bill Gates oo muddo 20 sano ka badan ahaa aadamaha ugu hantida badan ayaa booskiisa waayay 2017kii. Iminkana waxa uu muuqdaa mid waynaya booska labaad. Kaalinta 3aad waxaa ku jira oo booska labaad geli raba maalqabeenka Faransiiska ugu hodansan iyo guud ahaan Yurub ee Bernard Arnault. Mulkiilaha Facebook ayaa booska 4aad soo galay sanadkan, halka booska 5aad uu ka soo muuqday maalqabeenka ugu hodansan guud ahaan Asia oo sarakac ballaaran sameynaya. Booska 6aad waxaa ku jira shaqsi muddo 20 sano ka badan ahaa qofka labaad ee dunida ugu hodansan, deeq bixiye iyo maalgeliye aad loo qadariyo waa Warren Buffett oo hoos u dhac sameeyay. Booska 7aad waxaa ku jira Larry Ellison, hantiile leh shirkad soo saarta software-ka, halka booska 8aad uu soo galay Elon Musk, bilyaneer xawaare sare ku socda, maalqabeen maalgashada barnaamijyada hawada sare, ahna shaqsiga qura ee 10kan sare ku jira ee Afrika ku dhashay. Booska 9aad waxaa ku jira Steve Ballmer, maalgashade muddo badan soo ahaa madaxa fulinta shirkadda Microsoft, halka booska 10aad uu ku jiro mid ka mid ah labada aasaasi iyo mulkiile ee shirkadda Google waa Larry, sidoo kalena ah shaqsiga leh shirkado ay ka mid yihiin Alphabet iyo shirkadda YouTube. Hantidooda guud marka la isu geeyo 10koodaas waxay kor u dhaafaysaa 920 bilyan. Waa dhaqaale ka badan dhaqaalaha Sacuudiga ama Turkiga ama isku darka dalalka Masar iyo Nigeria. 7 ka mid ah waxay hantida ka sameeyeen tiknoolajiyadda, marka laga reebo Bernard Arnault iyo Mukesh Ambani oo hantida kasoo bilaabay shirkadaha ay aabayaashooda ay lahaayeen. Inta kale waa self-made billionaires. Listiga 3 ka mid ah isir ahaan waa Yahuud, kuwaasoo kala Mark Zuckerberg, Larry Ellison iyo sidoo kale Larry. Sidoo kale 10koodaas 3 ka mid ah waxbarashada ayay isaga hareen bilowgoodii. Kan ugu da'da weyn intooda waa Warren Buffett, waxaana ugu da'da yar Mark Zuckerberg. Sidoo kale 7 ka mid ah bilyaneeradan shirkadaha ay hantida ka sameeyeen iyaga ayaa gacantooda ku aasaastay. Markan aan u galno macluumaad ku saabsan maskaxda bini'aadamka. Haddii maskaxda aadamuhu ay kombiyuutar ahaan lahayd, waxay fulin kari lahayd 38,000 oo trilyan oo howlgal halkii ilbiriqsiba. Kombiyuutarka ugu awoodda badan dunida ee loo yaqaano blockchain waxa uu maamuli karaa 0.002 boqolkiiba xogtaas. Maskaxda aadamuhu 2 boqolkiiba ayay ka tahay jirka bini'aadamka. Culeyskeedu waa 1 kiilo iyo bar. Waxay ka kooban tahay 100 bilyan oo dareemayaal ah. Sidoo kale samaysankeeda guud 75 boqolkiiba waa biyo. Sanadka koowaad ilmaha maskaxdiisu 3 jeer intii ay ahayd in la eg ayay kortaa. Ilaa qofku 18 sano kasoo gaaro koriinka waa ay wadaysaa maskaxda. Riyooyinka waxaa la rumaysan yahay inay yihiin isku dhaf mala awaal, arrimo jir ahaaneed iyo qodobo neerfayaasha la xiriira. Waa astaan muujinaysa in maskaxdaadu ay u shaqeynayso si ka badan marka aad soo jeedo. Waxayna ka tarjumaysaa xitaa marka aad hurdo in maskaxdaadu shaqeynayso. Maskaxdu waa xubinta ugu duxda badan jirka aadamaha, 60 boqolkiiba waa dux. Maskaxdu marnaba xanuun ma dareento gudaheeda inta la ogyahay sida xubnaha kale u dareemaan xanuunka, iyada uma dareento. Madax xanuunka waa xanuun ay dareemaan murqaha iyo neerfayaasha madaxa ku jira. Taasi waa sababta marka la sameynayo qaliimada maskaxda loo fuliyo isaga oo qofku soo jeedo. Markasta oo aad weynaato maskaxdaadu way sii yaraanaysaa. Sidoo kale waxaa la xusaa qofka marka uu soo gaaro da'da 20meeyada inuu bilaabo luminta keedka xasuusihiisa. Oksijiinta iyo dhiigga jirku isticmaalo 20 boqolkiiba waxaa qaadata maskaxda. Waa xubinta ugu muhiimsan jirka bini'aadamka. Sidoo kale waxaa la xusaa in gudaheeda xididada dhiigga ee dhexmara dhererkeedu guud uu gaarayo 100,000 oo meyl. Guud ahaan masaafada dhulka ee labada cirif ee dhulbaraha taga waa 20,000 oo meyl. 4 jeer ayay xididahaasi ka dheer yihiin dhulka. Celcelis ahaan 70,000 oo fikradood ayuu qofku sameeyaa maalinkii oo ay maskaxdiisu soo saartaa.
cilmi baarisyadu waxay intaas ku dareen in maskaxda ninku ay 10% ka weyn tahay tan haweenka. Sidoo kale waxay muujiyeen in maskaxda dumarka ay ka dareemayaal badan tahay tan ragga, taasoo u sahlaysa in si dhaqso ah shaqada u qabato. Marka aynu aragno sawiro, waxay durba indhaheenu ay qabtaan sawirada oo gadisan. Durbadiiba maskaxda ayaa toosisa oo sawir caadiya ka dhigta. Qofka marka uu hurdada ka soo kaco, maskaxdiisa waxay leedahay awood ay dab ku siiso ama ku shido laambadda ilayska. Cuntooyinka badda ayaa ah kuwa ugu wanaagsan ee faa'iidada u leh maskaxda. Ayasiidda iyo duxda ku jirta ayaa maskaxda ka saacida inay si wacan u shaqayso, xasuuso badanna soo celiso, halka khamriga uu yahay cadowga ugu weyn ee maskaxda dareemayaasha kala fura oo dhaawaca. Haddii dhiigga maskaxda aada uu hal mar istaago, muddo 10 ilbiriqsi ka yar ayuu qofku ku miir daboolmayaa. Sidoo kale qofka marka uu dhinto, maskaxdiisa muddo 5 ilaa 6 daqiiqo ah ayay sii jiri kartaa. Intaas ayaana kusoo gabagabeynayaa mowduuceena maanta oo aan kaga hadalnay 10 shaqsi ee dunida ugu hodansan waqtigan iyo maskaxda bini'aadamka sida ay u shaqeyso. Waxaa barnaamijkan idiin soo diyaariyey saaxiibkay Maxamuud Daahir, anigoo Bashiir Dhaqanana waa idiin soo jeedinayay. Fadlan ha hilmaamin inaad subscribe noo sameyso, kommentiyo dhiirigelin aad noo soo qorto, asxaabtaadana aad u sii shargarayso. Waad mahadsantihiin dhammaantiin.